السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muuqaal keenan maanta waxaynu ku baahin doonaa saadaalinta golaha wasiirada ee cusub ee xukuumadda madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdiraxmaan cirra uu soo magacaabi doono. Haddaba inta aynaan bilaabin fikirkaaga ka soo dhiibo, aad baad mahadsan tahay. Wasiirka ugu awoodda badan xukuumadda madaxweyne cabdiraxmaan cirro waxa uu noqon doonaa mudane xirsi cali xaaji xasan oo noqon doona wasiirka arrimaha gudaha. Wasiirka labaad wuxuu noqon doonaa master cabdiraxmaan ducaale bayle oo loo magacaabi doono wasiirka horumarinta maaliyadda. Wasiirka ku xiga waxa uu noqon doonaa master barkhad jaamac batuun oo la filayo inuu iska casili doono dhowaan xubinimadiisa golaha wakiilada, isagoo oo noqon doona wasiirka horumarinta cadaaladda. wasiirka ku xiga waxa uu noqon doonaa master axmed yaasiin sheekh cali ayaanle oo loo badinayo inuu noqon doono wasiirka diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda somalilan. wasiirka ku xiga waxa uu noqon doonaa cabdikariin axmed mooge, ahna maayirka magaalada hargeysa, oo la filayo inuu iska casili doono xilka maayirnimo si uu u noqdo wasiirka howlaha guud iyo horumarinta jidadka. master maxamed cabdilaahi cumar ayaa loo magacaabi doonaa sida la isku raacsan yahay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah. master cabdilaahi cismaan jaamac geeljire ayaa loo magacaabi doonaa wasiirka waxbarashada jamhuuriyadda somalilan. master baashe cawil xaaji cumar ayaa loo magacaabi doonaa wasiirka isgaadhsiinta iyo tiknolojiyadda. master ismaaciil aadan cismaan ismaaciil yare ayaa loo magacaabi doonaa sidoo kale wasiirka gaashaandhigga. master axmed muumin seed ayaa loo magacaabi doonaa wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga. master xuseen axmed caydiid ayaa loo magacaabi doonaa wasiirka horumarinta biyaha. master yuusuf nuux taadhase ayaa loo magacaabi doonaa wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha jamhuuriyadda somalilan. master axmed cumar xamarji ayaa loo magacaabi doonaa wasiirka qorsheynta jamhuuriyadda somalilan. master cabdirashiid xasan mataan ayaa isagana loo magacaabi doonaa wasiirka maalgashiga. master salebaan diiriya dogox ayaa loo magacaabi doonaa wasiirka arrimaha bulshada jamhuuriyadda somalilan. master cabdirashiid maxamed yuusuf dhukur ayaa loo magacaabi doonaa wasiirka horumarinta maalgashiga. master faarax cilmi geedoole ayaa loo magacaabi doonaa wasiirka horumarinta beeraha. master cabdilaahi maxamed daahir cukuse ayaa loo magacaabi doonaa wasiirka warfaafinta jamhuuriyadda somalilan. master xuseen cabdi ducaale ayaa loo magacaabi doonaa wasiirka macdanta iyo tamarta. master cabdiraxmaan cali maxamed awkombe ayaa loo magacaabi doonaa wasiirka horumarinta caafimaadka. mrs milgo maxamed cilmi ayaa loo magacaabi doonaa wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga. master axmed hurre haariye waxaa loo magacaabi doonaa taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan, isagoo bedeli doona taliye nuux taani. master ismaaciil faarax cawaale doolaal waxaa loo magacaabi doonaa taliyaha ciidanka booliska jamhuuriyadda somalilan, isagoo bedeli doona taliye dabagale. master khadar xuseen cabdi waxaa loo magacaabi doonaa agaasimaha sirdoonka somalilan. waxaa iga xasuusinaa daawadayaal in goobtan ay ka maqan yihiin dhammaan golihii wasiirada ee beesha harti. sidaasi darteed waxaynu ka sugi doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan cirro inuu soo magacaabi doono. fadlan haddii halkan aad soo gaadhay, fadlan noo soo falow gare facebook pagekeenna oo maraya 1.9k, youtube channelkeena oo maraya 4.7k, iyo tiktokteena oo maraysa 2k. mahadsanid, aad baad mahadsantihiin dhammaantiin.